madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia waxaana airportka ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa si diiran u soo dhaweeyay William Ruto waxaanu si kal iyo laaba waliba saaxiibtinimo ay ku dheehan tahay in uu soo dhaweynayo waxaana jirta markaa in William Ruto iyo markaasi Abiy Ahmed ay saaxiib dhow yihiin xagga madaxweynihii hore Kenyatta markaa uu saaxiib la ahaa baa leeyahay dhinaca Tigreegana uu u janjeeray laakiin William Ruto isagu dhinaca Abiy Ahmed ayuu markaas isagu raacsay xukuumaddiisa oo waxa xulafo ahaa baa leeyahay markaa William Ruto iyo Abiy Ahmed iyo Farmaajo markaas xilka ka degay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa xulafo isku ahaa baa leeyahay haddaba si kasta ha ahaatee saaxiibtinimo dhow ayaa haatan marka oo diiran ayaa ka dhaxaysa waxa uu helay baa saaxiib dhow Abiy Ahmed oo reer galbeedku ay go'doon ku rideen oo moogtay doonayeen in garbaha ay ka jafaan maadaama uu dagaalka Tigreega uu aad ugu tilax tagay leeyahay oo weerarada uu ku hayo Tigreega ay reer galbeedku ka caroodeen marka Abiy iyo in isla go'aan afaweerki oo marka ay go'doonka ku jiraan ayaa la doonayay markii la doortay haatan madaxtinimada ku guuleystay madaxweynaha Kenya Ruto aad ayuu horta ugu farxay Abiy Ahmed haatan daba booqashada uu ku yimid William Ruto Addis Ababa ujeedada guud horta u socda waxa weeyaan inuu xariga ka jaro shirkadda Safaricom oo haatan marka ka hirgelisay Ethiopia telefoonada taasi oo noqonaysa markii koobaad ay shirkad heer caalami ah ay marka Ethiopia ka hirgasho iyadoo suuqyada dihin aan wali la taaban Ethiopia ay hayd baa waxaana xiriirka ganacsi ee labada dal ka dhaxeeya ay u noqonaysaa tallaabo weyn oo haatan xagga horumarka ay u qaadeen iyo wada shaqayntooda dhinaca kale xagga siyaasadana saaxiibtinimadooda iyo sidii ay wada shaqayn lahaayeen labada hogaamiye ayay ka wada hadlayaan baleeyay taasi oo marka ay xiriirka labada dal sii xoojiyaan iyo waliba iskaashi gaar ah ay yeeshaan oo garbaha uu ku duulaya markaasi Abiy Ahmed hogaamiyaasha geeska Afrika ayuu markaa noqonaya Ruto xaggii Farmaajo uu ka baxay ayuu markaa Ruto u soo galay baa leeyahay Abiy Ahmed waxaana laga yaabaa baa leeyahay heshiis saddex geesood ah in ay galaan Kenya iyo markaa Ethiopia iyo Eritrea sidii Farmaajo ula galay oo kale inkasta oo markaa Kenya iyadu xagga dagaalada iyo waxaasi aan inta badan ku fiicnayn laakiinse ma garatay xagga siyaasad ahaan ayay ka caawinaysaa baa leeyahay oo garab buuxa oo ka difaaca mowta sharciyada qaramada midoobay ee reer galbeedka kolba la tiigsadeen Ethiopia in marka ay ka difaacdo oo ka garab gasho ayaa suurtagal baa leeyahay marka xagga siyaasadda ay advantage ama faa'iido u tahay Abiy Ahmed